wacan daawadayaal halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada daawan doontaan waxaa ka mid ah Imaaraadka oo basiin ku shubay arrinta Qatar ee Soomaaliya amni darrada ay ka wado ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Guleed Qatar oo fariintii ugu dambeysay u diray Somaliland gabdho wariyaal oo loo xiray qaraxii gobolka Banaadir siyaasiyiin aan damiir lahayn oo durba loolan ugu jira xilka gudoomiye Yirisow iyo odayaasha beelaha Muqdisho shaaciye tuhun ay ka qabaan qaraxii gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Khayro amray ahlu sunno inay ka amar qaataan madaxweyne Farmaajo xaflad al-shabaab tababar loogu soo xirayo la duqeeyay xubno sarsare oo shabaabka Kenyaanka oo halkaas ku dhintay jaamacado badan iyo iskuulaad ku yaala Muqdisho oo la xiri doono iyo sababta keenaysa oo la ogaaday qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal markale kulan waxaan haddii aad inagu cusubtahay fadlan subscribe saar si wararkeena aad ula socoto kuna dhufo gambaleelka kuu muuqda si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena degdeg aynu soo baahino dowladda Imaaraadka ayaa basiin kusii shubtay arrinta Qatar ee Soomaaliya amni darrada ay ka wado dagaalka ka dhex jira khaliijka carabta dowladahooda ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid la isku dulmeereysanayo arrimaha Soomaaliya dusheeda 2017kii dalal ay Sacuudiga hormuud u tahay waxay Qatar u jireen xiriirka kadib markii xukuumadda Dooxa lagu eedeeyay inay taageerto kooxaha argagixisada adduunka xilligaas wixii ka dambeeyay ma jirin cilaaqaad iyo wada shaqayn dowladda Qatar ay la lahayd dalalka khaliijka toddobaadkii hore warbixin wargeyska New York Times uu soo daawacay ayaa waxa uu ku sheegay in Qatar ay ku lug leedahay amni darrada Soomaaliya ayna al-shabaab taageerto ay caabiso warkaas waxaa si cad u beenisay xukuumadda Dooxa oo ku tilmaamtay mid sal iyo raad aan toon lahayn arrintaas waxaa hadda dabka ku sii shidaya oo sii cakiraya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqash kaasoo sheegay in Qatar ay taageerto argagixisada Soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu sidaas ku sheegay wasiir ka tirsan isutaga Imaaraadka Carabta Qatar iyo Imaaraadka iskuma wanaagsana balse xafiiltankooda ayaa hadda wuxuu ku soo biyo shubtay arrimaha Soomaaliya oo la isku hayo warbixinta ay qortay wargeyska New York Times waxaa dowladda Qatar lagu eedeeyay inay doonayso in Imaaraadka Carabta ay ka saarto guud ahaan Soomaaliya Imaaraadka waxay Soomaaliya kaga sugan yihiin Boosaaso oo ah halka ay ka shaqeyso shirkadda DP World oo Imaaraadka laga leeyahay Qatar waxay doonaysaa in halkaas ay geyso shirkad dalkeeda laga leeyahay ganacsatada dalkeedana ay maamulaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliyana waxa uu baaqi ugu dambeeyay u diray Somaliland ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abukaate Mahdi Maxamed Guleed Qatar oo warbaahinta la hadla ayaa soo jeediyay in dib loo bilaabo wada hadallada dowladda federaalka iyo Somaliland Soomaalida ayuu sheegay in aysan kala go'in isla markaana aysan kala maarmin sidaasna loogu baahan yahay in loogu wada hadlo si loo xaliyo waxyaabaha la kala tirsanayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abukaate Mahdi Maxamed Guleed Qatar ayaa sheegay in dadka intooda badan aysan rabin kala qaybsanaanta Soomaalida Qatar waxa uu tilmaamay in dadka ka soo jeeda Somaliland ay ku kala aragti duwan yihiin kala go'a koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya shacabka intooda badan ay jecel yihiin midowga labada dhinac muddadii dalku ku jiray burburka waxa uu shaaciyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya in dhalinyarada wax baratay aysan u baahnayn in shaqo la'aan awgeed naftooda halis ay u geliyaan dhanka aqoonsiga Somaliland waxa uu sheegay in caalamka laga aqoonsan yahay Soomaaliya laguna safro baasaboorka dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa dhawaan ku dhawaaqay guddi sii wada hadallada dowladda federaalka iyo Somaliland waxaana ka hor yimid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo sheegay inaysan la hadli doonin guddi ay ku jiraan dad ka soo jeeda deegaanada Somaliland gabdho wariyaalahana waxaa loo xiray qaraxii gobolka Banaadir ciidamo ka amar qaata taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa shalay galab beerta nabadda waxay ka kaxaysteen laba gabar oo wariye ah kuwaas oo halkaas kaga qayb galaya kulan loogu duceynaya Allah u naxariistay agaasimiye nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane inkastoo si dhab ah loo ogeyn halka la aaday sababta loo kaxaystay ayaa haddana wararka qaar waxay sheegayaan in mid ka mid ah hablaha la sii daayay halka mid kalena la qabtay waxna laga weydiinayo gabadhii isku qarxisay xarunta gobolka Banaadir wararku waxay intaas ku darayaan in gabadha la kaxaystay oo magaceedu yahay Filsan Duceysane wax laga weydiinayo qaraxii gobolka Banaadir taasoo la tuunsan yahay sida dadka ay sheegayaan laamaha amaankana qaarkood ay warbaahinta u sheegeen inay qaraabo dhow yihiin Basiiro oo ah gabadha la tuhmayo inay isku qarxisay hoolka shirarka ee gobolka Banaadir
gabadhan waxay ka howlgashaa Muqdisho Cable TV oo ah warbaahin aan shaqo ku lahayn arrimaha siyaasadda keliyana baahisa muuqaalada arrimaha bulshada. Dowladda federaalka ayaan weli soo bandhigin natiijada baaritaanka qaraxa, halka wararka qaar ay sheegayaan in la isku khilaafsan yahay qaabka loo soo bandhigayo. siyaasiyiin aan damiir lahaynna waxay durba loolan ugu jiraan xilka guddoomiyihiisa. siyaasiyiin iyo dad xildoon ah ayaa durba bilaabay inay u loolamaan xilka guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhaawiciisa lagu dabeynayo magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee caasimadda Muqdisho ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin reer Muqdisho ah oo doonaya in lagu bedelo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. odayaashan ayaa tilmaamay in arrintan ay tahay dadnimo xumo isla markaana siyaasiyiintaas aysan matalin shacabka gobolka Banaadir. sidoo kale waxaa intaas ay ku dareen in siyaasiyiintaas xildoonka ah oo la xiriiray madaxweyne Farmaajo ay yihiin kuwa aan damiir lahayn isla markaasna ay iska qaban doonaan. waxaa jira siyaasiyiin naga mid ah oo madaxweynaha ula rooraya waraaqado oo xilka Injineer Yariisow ka jirinaya dowladda. madaxweynaha ku ajramin, ra'iisul wasaaraha ku ajramin, nimankaas damiir ma laha ayuu yidhi mid ka mid ah odayaasha. sidoo kale isagoo sii hadlaya waxa uu intaas raaciyay nin nool lama dhaxlo. guddoomiye Yariisow oo ku dhaawacmay weerarkii 24 bishan ka dhacay xarunta dowladda hoose Xamar ayaa haatan lagu dabiibayaa gudaha dalka Qatar, waxaana xaaladiisa caafimaad ay tahay mid soo hagaagaysa walow markii ugu horeysay oo xalay u hadlay. geesta kalena odayaashan waxay war ka soo saareen qarxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, waxaana shaaca ay ka qaadeen inay jiraan tuhmo iyo su'aalo badan oo u baahan in dowladda ay ka jawaabto. waxgaradka oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa sheegay in dowladda lagu fadhiyo inay si degdeg ah u soo bandhigto baaritaanka dhacdadaas. waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in la caddeeyo sida uu ku dhacay weerarkaas iyo cidda fulisay intaba. odayaashan ayaa xusay in xarunta dowladda hoose ay ahayd goob amnigeeda si weyn loo sugo isla markaana ay suuragal ahayn in si fudud qarax lagu geliyo. sidoo kale waxay tilmaameen in arrin laga yaabo inay tahay in weli caasimadda oo kale xiran la beegsanayo xarumaha dowladda, weeraraduna ay sii socdaan iyadoo ciidamo badan ay ku sugan yihiin magaalada, howlgalladuna ay joogto u socdaan. ugu dambeyn odayaasha beelaha Muqdisho waxay ka dalbadeen madaxda dowladda inay la yimaadaan isbeddel wax lagu qabanayo nabadgelyada. ugu dambeyn odayaasha beelaha Muqdisho ayaa ka dalbaday madaxda dowladda federaalka inay la yimaadaan isbeddel wax lagu qabanayo nabadgelyada, sidoo kalena lagu yareynayo culayska haysta shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir. ammaanka degmooyinka Muqdisho ayaa maalmihii dambe faraha ka sii baxayay iyadoo ay ka dhaceen weeraro qaraxyo ay sheegteen Al-Shabaab. jaamacado badan iyo iskuulaad ku yaala Muqdishona waa la xiri doonaa. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Barre ayaa bishan horaanteeda ku dhawaaqay in jaamacadaha waddanka ka jira aan la kala saari doonin, waxaana ay noqon doonaan kuwa yar oo heli doona aqoonsiga jaamacadnimada accreditation ee wasaaradda oo sii wadan doona shaqadooda, iyo jaamacado badan oo waayi doona aqoonsiga oo albaabada loo xiri doono marka la soo saaro natiijada kormeerka iyo baarista lagu samayn doono jaamacadaha oo dhan. sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in dugsiyada hoose iyo kuwa sare ee dalka loo kala saari doono qaar ruqsad lagala noqon doono oo albaabada loo xiri doono iyo kuwa horshooda loo ogolaan doono inay sii wataan kormeerka kadib. sababta qasab ka dhigaysa in wasaaradda ay xirto jaamacado badan waxaa ka mid ah jaamacadihii oo tartan xad-dhaaf ah iyo tayo la-aan lagu arkay. gobolka Banaadir oo keliyana waxaa ka jira 100 jaamacadood in ka badan. waxaa la sheegay in jiraan jaamacado badan oo isu bedelay masnac ama warshad soo saarta dibloomooyinka dadweynahana laga iibiyo. waxaa kale oo la sheegay inay jiraan jaamacado ah garab rarato oo sheegtay inay bixiyaan koorsooyin online ah. ceebaha iyo ciladaha dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare aad ayayna u badan yihiin. arrimahaas waxay keenayaan in Cabdullaahi Goodax Barre uu si adag u sheegay in guud ahaan uu xiri doono jaamacadaha iyo iskuulada aan tayada badan lahayn. xulashada wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyran waxa uu ciidamada Al-Sunna u sheegay inay madaxweyne Farmaajo ka amar qaataan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyran ayaa kormeer ugu tagay ciidamada xoogga dalka ee ka tirsan guutada 15aad ee taliska qaybta 21aad oo ka kooban ciidamadii dhawaan la qarmeeyay ee Al-Sunna iyo ciidamadii qaybta 21aad ee magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo hadda diyaar u ah howlgallo lagu baacsanayo Al-Shabaab. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyran oo ciidamada ugu tagay kormeer dhiirigelin iyo dardaaran ah ayaa ku booriyay inay si wadajir ah ugu shaqeeyaan midnimada, qarannimada, sugidda amniga iyo howlgallada Al-Shabaab
loogu xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka galmudug. Ra'iisul wasaaraha ayaa si gaar ah u dardaarmay taliyaha guutada 15aad Generaal Mascuud Maxamed Warsame iyo taliyaha taliska 21aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Yuusuf Maxamed Cabdulqaadir Kaanti isagoo ku adkeeyay inay gutaan mas'uuliyadda ka saaran difaaca dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada ay u xilsaaran yihiin. Xasan Cali Kheyre waxa uu sheegay in muhiimad weyn ee dowladda u leedahay tayeenta ciidamada iyo qalabeyntoodana waxaana uu ballan qaaday in si dhaqsiya loo dhisayo xarunta 21aad ciidamadana loo dhameystirayo dhammaan qalabkii tababarka ay u baahan yihiin. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ciidamadan la doonayo inay ka amar qaataan talisyada ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aysan ahayn ciidamo qabiil iyo kuba ka tirsan wali ahlu sunno. ugu dambeyntiina xubno shabaab ah oo tababar soo xiraya ayaa la duqeeyay. Mas'uuliyiinta ayaa shaaciyay in diyaarado dagaal ah ay laba duqeyn ka geysteen magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya habeennimadii Isniinta. Saraakiishan oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland waxay tilmaameen in duqeynta koowaad lala beegsaday munaasabad ay Al-Shabaab tababar ugu soo xiriisay dagaalamayaal cusub. xubnahaas oo aan tiradooda la cayimin ayaa waxaa la sheegayaa in loo qoray guutada xoogaga gacansaarka la leh Al-Qaacida u qaabilsan waddanka Kenya ee loo yaqaan Jaysh al-Ayman. warbixinta waxay intaas ku sii daraysaa in weerarkii labaad ee dhanka cirka uu ka badbaaday hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaasoo aan weli la xaqiijin magaciisa iyo jagada sare oo uu ka hayo kooxda. ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha dhabta ee howlgalladaas ka soo gaaray Al-Shabaab walow la tibaaxayo inay jirto dhimasho badan. Jubbada Hoose oo hoos tagta dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku xogan yihiin Al-Shabaab isla markaana ay ku tababarto xubnaha ka barbar dagaalama. duqeyntan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Jimcadii ay kulan ku yeesheen tuulada Buulafuley ee gobolka Baay hogaamiyaasha uu sareeya Al-Shabaab ayagoo ka wada hadlay arrimo ay ku jirto gobolada ay gacanta ku hayaan. xog la helay ayaa tilmaamtay in kulankooda ugu darnaa isbeddel ay ku sameeyaan deegaanada ay maamulaan iyo weliba xeelad cusub oo ay qorsheenayaan inay ku soo kordhiyaan howlgallada ay fuliyaan. Mareykanka iyo Kenya ayaa inta badan duqeymo ka fuliya deegaanada Jubbooyinka inkastoo howlgallada culus alaaba loogu bartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Washington. guud ahaan waa nageynta warkii aad kala socoteen xulashada wararka daawadayaal oo ku mahadsantihiin sida wararkeena aad ula socotaan. Nabadino.